asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad kusoo dhawaataan waraysi gaar oo aanu la yeelanayno wasiirka xafiiska ee horumarinta waraabka iyo dooxooyinka ee deegaanka waa kusoo dhaweynaya mudane wasiir aad baad u mahadsan tahay waxaanu kaaga mahad celinaynaa marka hore ee waqtigaaga qaaligeed noo hurtay waraysigeena ama mawduuceena barnaamijkani haddaan gudagalno bal xaaladda dalka waxaa ka taagan waxyaabo arrimo la xiriira TPLF oo kale bal arrimaha dalka maxaa kala socotaa aad baa mahadsantahay marka hore waana ku faraxsanahay maanta inaan halkan ka qayb galo barnaamijka TPLF iyo maanta marxaladda waddanka uu marayo waa mid qof kastoo waddanka muwaadinka ay saameynayso mas-uul ha noqdo shacab ha noqdo waa mid taariikh horena xidhiir lala mustaqbalkan ee higsiga ay leedahay saameynta ay bulshada ku yeelanayso waddankan waan ognahay taariikhdii hore markii dib loogu noqdo TPLF iyo taariikhda haddaan dib u raacno dadku waxaa laga yaabaa xukunadii waddanka soo talinaya inay qowmiyada gaar u saaraan tusaale ahaan marxalad boqortooyo waddanku soo maray marxalad military buu maray marxalad ay TPLF ka talinaysay uu maray iyo marxalad ay hadda TPLF 3 sano u dambeeyay ay ka maqan tahay marxaladaha boqortooyada marka laga sheekeynayo inta badan dadka Soomaalida gaar ahaan markaad fiiriso waxa laga yaabaa qowmiyada gaar inay eegaan marxaladda boqortooyada iyo kaniisadda isku dhex jiray ay ahayd qowmiyadaha waqooyiga gaar ahaan Amxaarada iyo Tigreeg waa mid ay u sinaayeen baxeen xukun gacanta iyaga ku hayeen tusaale waxa loo qaadan karaa as Yohannes oo kale inta qowmiyadu ka soo jeeday waan garan karaynaa taariikhahan soo jiray soo Tigreeg waa qowmiyadu ka soo jeeday Yeesu ahaa xukunkaas ballaarsiga ku socday dhinacna diinta ka ahaa dhinacna boqortooyada ka ahaa labada qowmiyada mid ay u sinaayeen bay ahaayeen shacabka Soomaalida waa kay u saarinayo inay marxaladda maanta taagan tahay uu soo gaarsiiyay ay lu ku lahaayeen marxaladda ka dambeysay dhargigii xukun military buu ahaa wuxuu ku soo aaday xilli loo hanqal taagayo xorriyadoon iyo gobonimo doon marxaladda iyada waa marxaladda TPLF asaasantay weeyaan ay soo jirtay shacabka Soomaalida ee waddanka Itoobiya ku nool muddada ay TPLF asaasmayso markay timaado halgankay ku jireen military-ga ku jireen ee ku ridayeen awoodii ay lahaayeen Soomaalidu marka la barbar dhigo TPLF iyaga ka awood badnaa halganka iyaga kaga qayb qaadasho badnaa markay timaado taageerada iyo backup-ka ay haysteen Soomaaliya ay ahayd abaal mar labaad bay ku leeyihiin deegaanka Soomaalida shacabka Soomaalida ee waddanka Soomaaliya jooga iyaguna taageerada ay lahaayeen iyo ahayd iyadoo marxaladaas oo dhan lisla soo maray ee xukunka TPLF qabsatay 91 xilligaas waxay ugu horeeyay TPLF samaysay waxay ahayd in halgankii shacabka Soomaalida intay la laabtay miskoostiisa ay geliso xuquuqdii dadka ay u halgamayeen haddayna noqonin goosasho oo tahay xuquuqdii waddanka ku lahaayeen inay helaan inay karto miskoostiisa gelisay bilowday 30 sano soo socotay 27 sano 28 sano muddo ku dhow ayuu xukunka talinayay dib aan u eegno xukunka intuu talinayay 27 sano federalism baa la dejiyay federalismka la dejiyay xilliga marka laga tago constitutionka ama dastuurka soo ugu qoran yahay marka laga tago hab dhaqankiisii cidda gacanta ku haysay waan garan karaynaa degmo laga bilaabo ilaa deegaanka Soomaalida cidda go'aanka gaadhaysay waan garanaynaa xubno TPLF ka soo jeeday ahaayeen shacabka Soomaalidu marxaladihii wixii soo dhacay waan garan karnaa halgan bay galeen mar labaad ku siyaasadeed bay galeen ku hubaysan bay galeen qayb badan oo shacabka Soomaalida ka mid ah halganku way dhici kartaa inay ururo dagaalamayaan laakiin markay timaado Soomaalidu TPLF xukunkeedu ka qoomiyad ahaan buu beegsaday tilmaamayaal baan qaadan karnaa wardheer wixii maalinkii uu ka dhacayaan ognahay anigu waxaan dhex taagnaa Shilaabo oo intii military-gu uu dagaal galay oo la baadiyaha dagaalku galeen markay magaalada ku soo noqdeen askartii military-ga ee shacabka dhexdiisa intay istaageen xabad ay ku fureen 6-7 qof aan maalinka aan ku aasin inta dhaawacantana ay tira lahayn caburin jirdil gubis barakicin iyo wuxuuna shacabka Soomaalida mutaysanay 30 sano gudaheeda maysan jirin marxaladii ka dambeysay waa marxaladan 3 sano hadda ka hadlayno isbedel baa dhacay xukunku markastaba cidii dimuqraadiyadda aaminsan weynaya minta xukunku inuunan qowmiyadna ku koobnayn shakhsina ku koobnayn isbedelkii dhacay ee halgankii loogu jiray in culayskana atlas la iska dulqaado shucuubta Itoobiya oo dhan ay ku wada jirta shacabka Soomaaliya qayb ka ahaa
isbeddelkii dhacay iyo dhinacii isbeddelka loo dhaqaaqayay deegaanka Soomaalidu saddexdaas sano waa marka ugu horeeyeen isleenahay waxaan soo sheegnay magacaabista iyo jiritaanka maamul ee deegaankeena gacan ku hayntiisa dhabta inay saraakiisha TPLF lahaayeen saddexdan sano dawladda dhisan ee ka shaqeynaysa dhabta marka looga hadlo marxaladii isbeddelku dhacay waa marxalad ka duwan laakiin isbeddelka intii la galay maamul talinayo qoomiyadda doontaba ha noqotee ay la kulahaayeen shacabka Soomaalida dadka maamulay ma jirin totally macnaheedu waxa weeye ugu yaraan shacabka Soomaalida wax xuquuqdiisa ugu yareysay karayo waxay ahaan lahayd inuu dadka matalaya isaga dooran karay dadka maamulayana uu noqdo dad iyaga gudahooda ka yimid iyaga gudahooda iska doortaan inuu noqdo wax ugu muhiimsan asaasiga ahayd waxay ahayd in shacabku nafisaan oo xorriyadooda inay helaan oo hadlaan inay xorriyadooda ka hadlaan ay helaan waxay shacabku nafisaan inay xabsiyadii ka baxaan waxay shacabku nafisaan dhaqaale ahaan inay u koraan oo wadanka qayb qaataan waxay shacabku inay ogaadaan xuquuqda ay wadankan ku leeyihiin ee maamul ee dhaqaale ee siyaasadeed inay qayb ka yihiin waa tan hadda ismalihi 100% waa la dhameystiray laakiin waa tan halganka loo bilaabay waa tan ku jirno waana tan higsanayna intaan ka ballaadhinaan gaarsiino saddexda sano haddii dhab loo hadlo mashaariicda fulaysa dawladeed horumarku waa horumarkii miisaaniyadii baan soo miisaaniyadii maanta inay jijigeen taasoo laami laga sameeyo meelhableen taasoo iskuul laga dhiso meelhableen taasoo caafimaad loo dhiso intaasoo horumar la gaarsiiyo waxay ku timid go'aanka hogaamin meesha joogtay oo go'aansatay inaan lagu faragelinaynin maamulkoodu horumarka shacabkooda uga baahnaan inay gaarsiiyaan tuubo gooni ugu jirto la nuugayo cid kale nuugaysiyo meel kale laga shubayana aysan jirin oo meesha ka baxday waa markii koobaad in maanta markay timaado ka qaybgalka federaalka iyo saan u higsanayna aan ku talagalay waxaan xasuusanahay isbahaysi baa ka talinaya wadanka 27 sano la soo dhaafay markii TPLF hogaaminaysay isbahaysiga wadanka talinayay wuxuu sal ku hayay TPLF iyo powerkeeda go'aanka inayna Soomaalida iyo dadka la midka marna qaybna ka noqonin ma ahayn isbahaysiga guud wax ka soo baxay wax urur gaar ah ka soo baxay TPLF waxa waxay dhahayeen inta aad tihiin dad reer guuraa oo noloshooda qaabkan tahay suuragal maaha EPRDF inta ka mid noqotaan inaad xukunka wadanka qayb ka qaadataan oo macnaheedu ay tahay qaab nololeedka shacabka Soomaalida in lagu yeeso oo loo arko dad wax maamuli karin la maamulo mooy saddex sano marka taan beeninay taas ahayd in ka gudbaynay waxa timid xukunkii kala wareegay markuu yimid TPLF go'aankay qaadatay wuxuu ahaa ama aan maamulo cadkan oo aan ku cunay ama ku ciideeyay waxay Soomaalidu dhaxdaa ama anigu kursigaan fadhiyo ama haddaan fadhin waayo waan ciideynaya wax kasta waan burburinaya dagaalkay qaadeen oo ku bilowday militariga halka joogay federaalka inay baabi'iyaan weeraraan gumaadaan ku bilowday ku ballaarsaday inay qoomiyadihii dariska lahaa weerar ku qaadaan waxaan arkaa hiigsigoodan uu yahay xukunkan ka sheekaynay shalay inay dib ugu soo noqdaan waxaan arkaa waa mid jiritaan la xidhiidho ummadda Soomaaliyeed iyo shucuubta la midkaaba mid jiritaankooda la xidhiidho oo shalay waxaan soo barbardhigayno shalay waxaan soo marnaan barbardhigayno maanta waxaan ku suganay waxaan higsanaynaa barbardhigayno higsigooda hadduu yahay xukunkii shalay aan ku soo noqono higsigooda hadduu yahay kalitalisnimo aan abuurno higsigooda hadduu yahay shucuubta kaloo dhan aan caburino shacabka Soomaalida gaar ahaan kuwa Itoobiya gudaheeda ku nool ka sokow kuwii Soomaaliya geeska Afrika joogeen gabro uu talinayay oo isku dayeen Soomaaliya kuwii joogay laftooda intay qaybiyaan inay xukumaan state sameeya kan halka ugu sheekeeya kan halka ugu sheekeeya ilaaheen waxaan aaminsanahay mar labaad barakac caburin iyo shacabka Soomaalida liidid in lagu sameeyo mid suurtagal ay noqonaynin go'aankanaguna waa midaan ku garab taagannahay halganka lagu jiro TPLF iyo dadka la fikirka in la baabi'iyo aan ku garab taagannahay intaana gaarin wadan heer wadan waa mid ii khuseynaysa ka muwaadin ahaan deegaanka Soomaalida ka xukuumad ahaan deegaanka Soomaalida noo khuseynayso oo ognahay mushkiladii shalay soo jirtay aanan diyaar u nahay dib inaan ugu noqon mushkiladii maxaa jira hadda shucuubta militariga iyo ciidamada gaarka ee deegaanadu leeyihiin ka sokow shacabkii laftiisa baa ka qayb qaadanay dagaalka
in dib loo celiyo TPLF laga xoreeyo deegaanada ay soo dhaxgaleen dib looga riixay deegaanka Tigreega laftiisa ay caburinayaan oo shacabkii Tigreega ay u adeegsadeen gabaad inay iyagu adeegsadaan carruurta yar oo adarkayseen TV-ga marka lagu soo daynay ilmo yar inuu qori qaato oo ay dagaal galiyaan gabadh ay ku dagaal galiyaan cid kasta ay dagaal galiyaan ay noqotay waa mid u dan ah ma hoo kaliya wadanka qaybihiisa galgudida shacabka Soomaalida kaliya ma aha shacabka Tigreega laftooda mid u dan weeyay iyagu laftoodu xilliga dadkii 40 sano soo halgamayay ku dhawaad halgamayay markii dhabta loogu tago shacabka caadiga dhibaato inay ugu sugnay TPLF-ta dadka macquulka ah ee joogay wadanka gudihiisa way cadeynayaan marka mar labaad iyaguna dan ugu ma jirto inay soo noqoto wadankana dan ugu ma jiro soo noqdo shacabka Soomaalidu markasta iyo xukuumad ahaanba waa mid naga go'aanano in aan mowqifkana ku cad yahay oo ku dhiiranayno la halganka iyo la dagaalka TPLF iyo mar labaad inuu deegaankana ku soo noqon dad iyagu waxa jira TPLF taageersan inay xukunka ku soo noqdaan iyadoo aad noo sheegtay in tacadiye fara badan ay soo geysteen intii ay xukunka haysteen ama dhanka baraha bulshada ka taageeraan ama si kala ha u taageeraan bal dadka ay adigu maxaad leedahay TPLF horta wadanku markay inta muddada ay maamulayeen ma ayna u maamulno kaliya ka maamul ahaan xukun ahaan ka dhaqaale ahaan bay u maamulayeen ka amni ahaan bay u maamulayeen bulshada soo noqodkeedana ay ku soo noqonayaan waa mid disaster macnaha baabi'in noqon karto xukunkoodu wuxuu ku dhisnaa mid argoosi ah qowmiyadeed shacab u ahaa haddii tilmaantada siinaya shilaabo wixii ka dhacay adii sheegayo waxay ahayd oo kaliya nin Soomaali ah ayaa militariga la dagaalamo oo dad dilay sadarteed markaan soo galay shacabka Soomaalida inaan laayo ayaan rabaa shucuubta wadanka joogto dhammaan saasi ku maamulayeen marka iguma muuqanayo xukun bedela oo dimuqraadiyadeed oo bulsho shucuub ay ku wada noolaan karto oo federalism dhab lagu dhaqan galin karayo oo TPLF hogaamin karto in wadanka dhaqan gal karayo marna ma jirto federalism ka hadda jiray dhaliil ka soo yeelan karaya in la sii ballaariyo mooyee dib mid looga noqon karayo ma shacabka Soomaalidu mowqifkiisu wacdi federalism Ethiopia waxaan uga midnahay federalism ka inaan ku dhaqanno federalism ka laakiin markii constitution lagu qorayo qoraal kale inuu noqdo miiska hoostiisa la dhigay mid la dhaqan geliyo shucuubta ay dareemi karayaan inay ismaamulayaan codkoodu u shaqaynayo inuu noqdo ayaan Soomaalida anagu mowqifkaygu u yahay hadday noqoto markii dib looga noqdo oo TPLF oo kala meesha ay timaado mowqifka iyagu waa adag yahay waana mid kama dambays meesha ugu dambaysa aan ka gaari karna halganka inayna xukunka ku soo noqonaan kula halgami doonaa dawladda waxa jirta been abuuro laga abuurayo hawlgalka ay TPLF wadama hawlgalka lagu la jiro kale waxa jira TV iyagu ka qayb qaadanaya inay warar aan xaqiiqo ahayn ay ka sii daayaan xaaladda dalka ama hawlgalka lagu la jiro TPLF oo kale bal xaaladahaadu maxaad kala socotaa waxa jirta warbaahinno qaar oo iyagu been abuur ka sameynaya hawlgalka lagu la jiro TPLF oo kale waxa jirta iyaguna been abuurro kale oo si guud u jiro dagaalada laga sheegayo Ethiopia iyo TPLF oo kale bal aduu taas maxaad kala socotaa maxaad ka dhihi lahayd horta caalamku siyaasado kala gedisan oo munaafaqad ku dhisan oo fara badan baa jira wuxuu intuu dhan yahay marka ay rabto siyaasad ahaan wadan wuxuu danaynay buunbuunin ka fara badan baa la geliyaa gumaad baa la sameeyay baa la leeyahay TPLF ka awood badan dawladda la leeyahay military ma jira la leeyahay dawladdu waa dawlad burburaysa la leeyahay iyaga dadka gumaadaya la leeyahay dhabta markaan inta uga hadalno markay timaado ma jirta dad la gumaaday waxa fiican laba wajiilanimo siyaasaddu inay keensato ma kuwaan ka sheekaynayna deegaanka Soomaalida shalay kuwa la gumaadayo kaamirada maanta halka haysa inay halkan haysa way haboonayd waa mid mar labaad gumaadka cidda sameynaysa ciidamada xeryaha ku gumaaday shucuubta kale intii ku soo duulaan gumaaday waa TPLF kaamirada halka inay haysa way hayda ma ahayn inay dhaxal dhinac haysato awood bay leeyihiin kanay sameynayaan ciidamadu way burburinayaan waxay la tahay markuu bilaamayay dib u sifaynta TPLF muddada ay qaadatay waad xusuusanaysaa wadanku waa 115 milyan 117 milyan meelaha soo qiyaastii marka la yiraahdo shacabka Tigreega guud ahaan oo isu geeyay 6 milyan 5 milyan 6 milyan meelaha soo gaadhaya shacabka Tigreega TPLF
oo group yar oo ka sii tirsan halka marka la barbar dhigo 120 milyan ku dhawaad bulshada milatarigoodu wato nidaamkooda dawladda dhaqaalahoodii watay way adag tahay inay loo qaato inay saan noqonayaan laakiin waxa been abuurka ee shacabka la gelinaya ama social media ha noqoto ama reer galbeed media sii daayaane mid xaqiiqada ka tarjumaya ma marna xaqiiqada mid ka tarjumaya ma waa mid buunbuuninaya dhacda hal dhinaca oo aan sheegaynin xaqiiqada dhabta ee meesha ka jirto cida garaacayso wadogtiin goobaha galeen deegaanka maxarada ee deegaanka Tigreega Cafarta ama deegaanka Tigreega gudihiisa kaabayaasha dhaqaalaha oo dhan bay burburiyeen jidadkii buundooyinkiiba gooyeen bangiyadiiba burburiyeen garoomadiiba burburiyeen jaamacadiiba burburiyeen maaha cid xukun bulsho horumarkeed u jeeday oo xukun kaliya inay bedesho u jeeday kaabayaasha dhaqaalaha ma burburiso markay timaado awoodooda ciidan haddayna buunbuunin reer galbeed ama social media wax lagu qoraya ayna ahayn dadka tiradooda intaa dhan tahay awoodda ciidan ay kaga badan karaan militarigii wadanka ay kaga badan karaan maleeshiyooyinkii iyo liyu boolisyadii deegaanada ay lahaayeen waad garan kartaa inaynan mid dhabta ka tarjumaysan ahayn waxaan isleenahay hadda markii hore dagaalkii lagu qaaday maalmo gudahood baa laga saaray deegaanka Tigreega xilligan dambe aan xaalad bidaan eegno hab shacabka gudihiisa aan loogu dagaalami karin oo shacabka lagu leynayn aan eegno tactic dagaal la sameeyo go'aan buu ahaa waxa cadaatay markayna goobna ku eegaanayn dan hada tilaabooyinka la qaaday wad la socotaan media marka ugu yartahay eega dagaalada ka socday ugu yaraan saddex xag oo kamid ah dib loo celi saddex xag afar xag bay ku dhowdhowiyeen saddex xag baa dib loo celi guud ahaan dib u riixid baa lagu wadaa hadda waxaan ku rajaynaynaa muddo gaaban gudahood in deegaanka Tigreega iska deegaanada kale ay ku sii dhex jiraan ay kaga dhex bixi doonaan haduu ilaahay marka media la wajiilanimo inuu ku shaqeeyo ma warbaahinta caalamkuna la wajiilaynta inay ka deysaan qabnaa waxa dhaba haday ka hadlayaan xuquuq bini'aadam iyo xadgudub dhacay taariikhda TPLF intay talinaysay iyo maanta ay dagaalamayso intuu dhaxayso wadanka Itoobiya gudihiisa wixii ka dhacay in la soo taxay u baahantay shacabka Soomaalida marka aan soo dhiganno wixii soo gaadhay wadanka gudihiisa wixii ka dhacayna la soo dhigo marka kadib aan soo gaarno dagaalka dambiilaha dagaalka ee jiro ee dhabta hal caday kii shalay dadka leeynayay asaga maanta inuu yahay ka ooyayo ee asaga leh ana leeynaya leh ma siinayso xuquuq in lagu xadgudbayo asaga dambiga shalay lagu qaado u baahan yahay maaha mid maanta xaq u dir noqon karaya marna ma ka xukuumad ahaan marka maxay idinka go'an shacabka maxaa la gudboon horta siyaasiyiinta guud ahaan deegaanka Soomaalida u dhashay waxa la gudboon waxa weeye cadawgu waa saaxiibkii siyaasadda Tigreega TPLF markay timaado kuma dhaqmi karto marraba ninka mise shalay ninkan la soo halgamayay maanta saaxiib baan la noqon karaya bari xukunka markuu yimaado maxaa damaanadu haystaa dhaqankii noocii shalay uu kula dhaqmay inuu kula dhaqmay doono muxuu haystaa oo damaanada inuu kula dhaqmi doono taadarteed waxay u muuqanayaan dad aan durbaan aan macna lahayn daba orday ninkii siyaasi ah noqda maanta TPLF cid ay hogaaminaysan raaci xukun ku raadini nin durbaan cidla garaacayo ayuu noqonayaa shacabkuna mid ku kadsoomi kara ma marka waxaan isleeyahay qofkaas oo kale siyaasadiisa inuu dib u eego ayaa u habboon kamana tarjumi karaya shacabka Soomaalida dareenkiisa dhabta siyaasad ka tarjumayso marna ma qaadan qofka siyaasadda nooca qaatay markay timaado shacabka Soomaalidu waxa la gudboon marka anaga ka xukuumad ahaan iyo ka urur siyaasadeed ahaan awood kastoo leenahay dagaalka TPLF lagaga horjeedinaan garab istaagnaan u baahan cidii siyaasad ku jirto urur siyaasadeed dhab ah aan isgarab istaagno shucuubteena maanta inaan lagu xadgudbinaan ka shaqeyno xukunkii shalay soo baabiinayna dib ugu noqonin aan qaadanayna ka shaqeyno markay timaado shacabku laba baa la kala dooran aragtidayda shalay waxa soo dhaweysay maxaa Soomaalidu dab aan ku guuban dambaskiisa lagama guday dhahan Soomaalidu dabkii shalay aan ku guubanay dambaskiisa mar labaad inaan ku dul ciyaarno suurtagal ma noqonayso marka waxay u baahan tahay shacabka Soomaalidu inuu ogaado waxyaalaha propagandada ee cidlada ee laga sheekeynayo eegin inay siyaasiyiinta dhab oo la xisaabtamaan ninka cadawgooda la safanay farta ku fiiqaan oo dhan cadawga la safantahay cadawna hadda la safantahay anaga naama matashiina ilaahan way cadawgooda dhabta inay ogaadaan weeyaan waxa ay higsanayaan xuquuqdooda maanta way dhameystiran tahay mali laakiin aan la xisaabtano Itoobiya inagoo kamida
Ethiopia dimuqraadi ah xuquuqda Soomaalida ogol ee ku dhahayn adu reer guuraaba too siyaasad ma matali kartaan ku dhahayn ee ku aaminsanaan la simantahay inaad ka dambaysaan aaminsanayn aan wax la wadaag laakiin cidda ku aaminsan inaad ka dambayso cidda ku aaminsan siyaasad inaad gali karin cidda ku aaminsan inaad hogaamin karin lagu hogaamiye mooy maanta ma noqon karto inaan garab istaagno higsano xukun ay gacanta ku hayaan marka waxa la gudboon inay garab istaagaan ciidamada waxa la gudboon inay garab istaagaan dawladda waxa garab la gudboon inay garab iyo gaashaanba u noqdaan cid kasto cidda la halgamayso inay garab istaagaan ba la gudboon